waxay bilowgeeda dhacdo xanuun kulul bay ahayd dadka reer Berbera oo ku waabiristay 20 bas oo inantaas ay wadato oo 20 bas Hargeysa laga keenay oo aan direewal hal direewal reer Berbera wada oo fursad shaqo ka helay aanu jirin saddexdii sano ugu dambeeyay heshiiskeeda cid hadda kilometer tamin warqadda recommendation ka aniga u qoray hay'adda kulliga mas'uulku waa eedeysanuun mas'uulka ahi hadii waxaan adiga aad wado ku raali gelin kar waayo markaba saacada dambiila tahay waana mas'uuliyaddeeda dulqaadkeeda leenahay waxaan maamulnaa gaadiidka kuwa caanaha kuwa xaabada kuwa dhuxusha kuwa iskargooyinka dhagaxa kuwa ciida dadka reer awdal waxaan ahay shakhsiga qura ee dadka reer awdal inta badan 500 qoys magaalada degan maamulaha shirkadda ee ka howlgashay dekedda magaalada Berbera leena gaadiidka qaada shaqaalaha dekedda Berbera ayaa maalintii shalay eedeymo culus waxa u soo jeedisay duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin hadaba duqa degmada Berbera oo eedahaasi ka jawaabay oo qaybo kamid ah warfidiyaanka kula hadlayay magaalada Berbera ayaa guud ahaan iska difaacay eedeymahaasi waana kan isagoo amurahaasi ka hadlaya qabashada waan arkay inanta Ilaahay ha barakeeyo aniga sharaf iyo karaamo iyo xurmo ayaan leedahay aniga iga mudan tahay nuguna joogtay 2016 ayay chance ka heshay dekedda Dibowal shaqada Dibowal ee dekedda gacanta ka hayso waxaan cadeynayaa bulshada oo cadeynaya dadka reer Soomaaliland oo cadeynaya inaan jirin haba yaraatay wax dhibaatay wax culays iyo wax cunsuriyada oo inanta ama dadka reer Berbera noqoto ama maamulahan ha noqotay aan kula kacnay sababtaas suurtagal ba ma noqoteen 7 sanadood oo aan 7 sanadood magaalada Maayar ka ahaa inay 7 sanadood bay magaalada ka shaqeyso hadii dadto xumaan ugu xumeynaya ee wax hore u dhicdo maalin may ka shaqeyseen aniga waliba gudo fara badan iyo culays fara badan oo deegaanka iga imanayay ayaan badan iyada ku difaacay waxay bilowgeeda dhacdo xanuun kulul bay ahayd dadka reer Berbera oo ku waabiristay 20 bas oo inantaas ay wadato oo 20 bas Hargeysa laga keenay oo aan direewal hal direewal reer Berbera wada oo fursad shaqo ka helay aanu jirin 20 direewalba Hargeysa laga keenay 20 basba mulkiilayaal dadka Hargeysa ay lahaayeen oo inantu soo kareysatay markaan eegnay aan sheegareynay aan aragnay xaq u leedahay sifa sharciye ay ku heshay waxaan sii deynay shaqadeedii waxaanu ka qabanay oo ka joojinay cid kasta oo lidi ku ahayd oo dhibaato ku keenin karisay shaqadeeda iyo habsami socodkeeda 7 sanadood ma facmooyay madara kama arag magaalada aad baan ugu mahadnaqay dadka reer Berbera iyaduna u mahadnaqdo aniga maamul baan laga caawin karaa saddexdii sano ugu dambeeyay heshiiskeeda cid hadda kilometer tamin warqadda recommendation ka aniga u qoray warqadda ku shaqeynaysay aniga u qoray saddexdii sanadood iyadoo barta ku jirtay dadka reer Berbera aad runtii magaaladu isbedel nololeed baa yimi horumar baa yimi way bulshadii dadku way bateen dhaqaalihii baa sare u kacay dadkii reer Berbera basaslayaasha hay magaalada xeeda joogay ayaa raadiyay chance kan helaan waan dhex galnay Allahumma salli alayhi markaan dhex galnay waxaan dadka reer Berbera sheegnay contract-gaas ilaa uu dhamaado inaan cid fargelin karta shaqada habeeraha aan jirin way ku qanaceen dadka reer Berbera iyada dadka reer Berbera waxay tageen wasaaradda gaadiidka ay tageen sarada gaadiidka soo warqaday ku soo celisay leedahay hawshaas waa hawl deegaanka u taala degmada u taala iyadoo qoraaleyna way haysatay degmadana way taala waxa la sugayay waqtiga Dibowal Dibowal waxay siisaa bulshada dadka ay reer Berbera ay waxay siisaa inay ka soo qayb galaan tartanka waqtigeedii baa la gaaray markaan dhexdhexaadinay waxaan u furnay inanta inay qayb ka ahaato dadka reer Berbera oo amreelaha guud ee iskaashatada akram leeyahay inay qayb ka noqoto si ay markay chance uga hesho hadii 20 bas haysatay hadii 30 bas haysataba ay ka mid noqoto dadka reer Berbera ee u tartamaya garansay shaqada way diiday
intaasoo markhaati bay lahayd fadhigiina naga kacday gaadiidkan halkan annagu aanu ka hadlaynaa waa gaadiidkay degmadu maamusho annagu gaadiid ay wasaaraddu maamusho ma maamulno annagu waxaan maamulnaa gaadiidka kuwa caanaha kuwa xaabada kuwa dhuxusha kuwa iskargooyinka dhagaxa kuwa ciidda kuwaasaan iskaashtooyinkaasaan maamulnaa heer degma annagu ee magaalada dhexdeeda jooga ee aan istabta xaggaa u dhaafin hargeysana ma yaqaanaan burcana ma yaqaanaan meel kalena ma yaqaanaan dadkaasay ka mid yihiin iskaashtadaas ayay kamid ahayd xaq baad u leedahay muwaadin baa tahay 7 sanadii dheeraad baa joogtay reer Berbera tahay ka soo qayb gal baan ku nidhi ujeedada ay dawladdu ka leedahayna meel walba dawlad ka jirta gobol aan ka jirin iskaashato laga maamulo dowladda saameysana ma jirade ujeedada ka leedahayna waxa weeyaan koow security nabadgelyada la ogaado meel kasta meel dhow laga xiriiri karo oo laga heli karo iyo dadku wada jir ay wax wada heli karaan oo si fiican ay jaansida fursad wada heli karaan abaal baad ku leedahay mooyaane eed baad ku leedahay ismaan lahayn daano kulli deemaan ka filanay hay'adda kulli mas'uulku waa eedeysanon mas'uulka ahi hadii waxaan adiga aad wado ku raaligelin kar waayo marka ma saacada dambiila tahay waana mas'uuliyaddeeda dulqaadkeeda leenahay dadka reer awdal waxaan ahay shakhsiga qura ee dadka reer awdal in ka badan 500 oo qoys magaalada degan oo ganacsi kula oo dekada ka shaqeeya oo kasta ka shaqeeya dawladda u shaqeeya oo shaqeysto meherada leh 500 oo qoys dheeraadku labadii jeer maayarka noqday labadii jeer ee dadkii doortay weeyaan madaxay noo saaray yihiin iyaga naga soo caban lahaa iyaga mutalla iyaga u ahay xildhibaan iyaga u ahay maayar dadka reer awdal ee magaalada Berbera degan iyaga leenahay xeer hoosaad iyo wada dhaqan wanaagsan bulshadana waa la weydiin karaa ma dhacayso suurtagal ma aha in qof reer awdal magaalada Berbera lagu cusubeydo ama lagu xumeeyo xamse axmed ciid wararka telefishinka caalamiga Horyaal TV magaalada Berbera.